Waddanka Iraaq oo Mareykanku xoog ku qabsaday sanadii 2003 ayaa iminka u muuqda inuu ka baxayo gacantii Mareykanka, laakiin si buuxda u galayo gacanta Jamhuuriyadda Iiraan. Dilkii ninkii labaad ee Iiraan ugu awoodda badnaa oo gantaalo Mareykan ay ku dileen 3dii bishii Janaayo 2020 turaabta dalka Iraaq waxay dhalisay in baarlamaanka dalka Iraaq ay ku dhawaaqaan in ciidamada ajaanibta ay ka baxaan Jamhuuriyadda dalka Iraaq. Waxaa kaloo maanta ciidamada Ciraaq ay ku dhawaaqeen in la saaro guud ahaan ciidanka ajnabiga gacan ku haynta amniga dalkoodana ay iyagu la wareegayaan. Qabsashada Ciraaq Mareykanka waxaa ku kacday $100,000 daqiiqada. Waa sida ay baahiyeen warbaahintooda. Waxa kale oo lagu xasuustaa sida dagaalku uu saameeyay dhaqaalaha adduunka sanadihii uu socday. Waxaa intaasii dheer in USA ay ku waayeen askar ka badan 80,000 inta uu socday dagaalka. Mareykanku Ciraaq waxay ka dhisteen safaaradooda caalamka ugu weyn. Qorshaha kuma aysan darsan in maalin loogaga adkaan doono gacan ku haynta dalka Ciraaq. Qaasim Suleymaani dilkiisa waxaa hore u diiday Bush. Waxaa kale oo uu laalay Obama. Trump ruuxiisu waa la horgeeyay dhowr mar ayuu diiday inuu go'aankaas qaato. Khamiistii oo 2 Janaayo ku beegneed ka hor dilka maalin ka hor dilka ayuu gaaray go'aan ah in la dilo. Dilka Suleymaani waxa uu Mareykanka ku noqday lacnad burburisay wax badan ay hore u soo dhiseen, waxaana ay soo dejisay in laga fikirayo in Bariga Dhexe reer galbeedku iskaga guuraan oo qalqal galo amniga marinka Hormuz oo aad ugu dhow biyaha Iiraan, waana dariiqa shidaalka caalamku uu maro 70%. Mossad oo ah sirdoonka Israa'iil waa kuwa Mareykanka ku qalqaaliyay dilka jaranaalka laftooda ayaa dhowr mar ku fashilmay in la dilo Suleymaani, waana ay u arkeen natiijo xumo inay ka dhalan karto. Balse dabeesha iminka ka curatay Ciraaq ayaa laga yaabaa insha Allah inay sii marto Falastiin. Dadka muslimiinta ee reer Falastiin ay ka xuruubaan cadaawadii Yahuudda. Haddii siyaasaddu ka xumaato waxaad muddo dhisaysay ama rag ka hore dhisayeen way waqti kooban ku burburiso, waa mid uu Trump sameeyay. Qaasim Suleymaani waa ninkii hogaaminayay dagaaladii lagu xasuuqay malaayiin Sunniyiin ah dalalkii Ciraaq, Syria, Yemen iyo Lubnaan. Waa ninka madhabka xag jirka ee Shiicada u gacan geliyay wadamo badan oo Sunni ah oo aan kuwa kor ku soo sheegnay Bahrain iyo Kuwait. Waxaase la hubin isbalaarinta Shiicadu inaysan joogsanayso. Mareykanka Israa'iil ayaana nabad ku hurdayaan maadaama xilkii uu baneeyay loo magacaabayo Qaani oo asagaba ah mid ka sii xag jirsan. Dhanka kala cabsida waqtigan waxay 100% ka taagan tahay Sacuudigu u muuqdo inuu u darsaday Allah u naxariistay Saddam Hussein oo waagii horay hortaagnaa awoodda Shiicadii isbalaarintooda. Laftooda ayaa dhabar jabiyay xilliga xulafadii Mareykanka ay ku duulayeen. Maalin Carafaana hortooda ayaa lagu dubtay iyagoo ku faraxsan. Waayo maanta Ciraaq ay xaduud wadaag yihiin ee Shiicadu gacanta ku dhigtay. Sidoo kale Yemen ay ku xoogan yihiin Xuutiyiinta ay taageerto Iiraan xaduud wadaag ay leeyihiin. Shiicadu labada xaduud waxay doontaa ayay ka sameyn kartaa, waana taas walwalka maanta Sacuudiga ka soo saaray hadalkii ahaa Iiraan iyo Mareykanku waa inaysan qaadin tilaabo dagaal. Ugu dambeyntii Sunniyiinta Bariga Dhexe xaalkooda waa inay kala doortaan inuu maanta Mareykanku ku bireeyo midada gacanta lagu hayo, amba inay doortaan inay Shiicadu biri ku bireyso midada dhulka taal. daawadayaashaan u jecelnahay oo meel walba aad joogtaan bulshakaaba media oo idin leh saaxiibayaal nagu taageera subscribe-ka tan iyo barnaamij caynkan oo la mid ah intaan ku imaanayna amba warbixino heerkan oo kale